Soo dhawaada dhammaan saaxiibada ku cusub janaalka. Muuqaalkeena maanta waxaan uga hadli doonaa dhacdadii dhacday 1976. Dhacdada gudaheed waxaa lagu qabtay diyaarad si fasax la'aan ah u soo gashay hawada dalka Soomaaliya. Xilligaas Soomaalidu waxa ay soo marayeen xilligii ay ugu xooga badnaayeen ama heerarkii ay ugu xooga badnaayeen. Dhacdadu waxa ay bilaabatay taariikhdu marka ay ahayd 1976 inta aan dhicin dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya u dhexeeyay. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dowladuna qaybaheedu waxa ay markaa marayeen heerarka ay ugu xooga badnaayeen. Diyaarad yar oo dalxiis ah oo dalalka reer Yurub laga leeyahay ayaa si fasax la'aan ah u soo gashay hawada Soomaaliya dhanka Jabuuti xiga. Diyaaraddu waxa ay ahayd kuwa dadka lacagta leh ay soo kireystaan, waxaana soo kireystay gabar reer Yurub ah iyo ninkeeda iyo laba malxiis oo la socotay duuliyaha iyo kaaliyihiisa. 6 qof oo keliya ayaa diyaaradda saarnaa. Dadka sida la sheegay waa dad maalqabeen ah oo lacag leh, dalxiis aroos bishoodii ugu horeysay ku jira. Waxa ay u dhasheen dalalka Iskaandinafiyaanka. Dalal badan haddii ay soo mareen, Jabuutina ay soo gaareen. Waxa ay gabadhii aroosadda ahayd xiisaynaysay jasiiradaha ku yaalla bariga Afrika ee Tanzania iyo meelaha u dhow. Haddii taa la go'aansaday, waa in hawada Soomaaliya oo geeska Afrika ku taal la maraa. Waxaa oggolaansho fasax ah loo soo qortay waaxda maamulka hawada Soomaaliya, taasoo codsigii diiday markii ay ku qanci weyday sababihii ay soo qoreen. Mar labaad ayay codsigii soo celiyeen. Jawaabtii diidmo ayay noqotay, waayo xilligaasi shakiyo ayaa jiray. Waxa ay dowladdu ka shakisay in ay basaasayaal noqon karaan ama jawaasiis. Caddaymo wax qanciyana ma keenin, oo duul isla weyn ayay ahaayeen, oo maba aysan is lahayn dowlad yar oo Afrikaan ah ayaa hadal idinku soo celinayso. Waa sida uu yidhi Ismaaciil Mire, Allah ha u naxariistee, Richard Coffed kibirkiisa markii uu sawirayay, isagoo yidhi kaskiisaba ma gelin, wiil yar baa keedka kuu qabanee, raggow kibirka waa lagu kufaa, ka hala ogaado. Gabadhii aroosadda ahayd waxaa lagu yidhi meeshaan iska dayno oo aan meelo kale u beddelano, haddii kale safar wareeg oo dheer ah ayay nagu qaadanaysaa, fasaxyaduna inay daahaan way dhici kartaa. Hase ahaatee gabadhii way diiday, wayna is oohisay. Waxa ayna tiri inaan xeebahaas badweynta Hindiya soo arka mooyaane lagama yaabo inaan Yurub ku noqdo. Duuliyaha iyo diyaaraddu lacag badan ayay qaateen oo hadal ma soo celin karaan. Duuliyihii ayaa laba gardaymooday, dibnihii ilkaha ku qabtay. Gabadhii ayuu indhaha kor ugu taagay, wuxuuna ku yidhi okay, waan baxaynaa, hawada Soomaaliya ayaynu maraynaa. Diyaaraddu aynan wadano waa casri, wayna yar tahay, isla markaana aad ayay u dheeraysaa, waana ka dhex dusaynaa. Asxaabtiisa ayaa ku yidhi Soomaalidu waa kuwa fasaxa inoo diiday, haddaynu marno soo inama arki karaan. Wuxuu ugu jawaabay muddo yar oo 45 daqiiqo ah ayaan hawadooda kaga baxaynaa. Waa dowlad yar oo Afrikaan ah, ma filayo in ay qalab casri ah oo na arki kara ay haystaan. Haddii ay na arkaanna, inta ay isgaarsiinayaan ama xiriirkooda socdo ayaan ka gudbaynaa. Diyaar garooba, beri subax ayaynu dhaqaajinaynaa. Subaxii dambe ayuu duuliyihii diyaaraddu furaha ku wareejiyay. Jabuuti ayuu ka soo kacay. Daqiiqado kadibna hawada Soomaaliya ayuu soo galay. Markiiba raadeerka hawada Berbera ayaa diiradda ku qabtay. Waa lala hadlay, maxaad tihiin? Hawo qaldan ayaa soo gasheen, dib u noqda. Hase yeeshee duuliyihii ma jawaabin. Dhowr goor haddii la hadlay, uusan wax jawaab ah bixin, soona dhaafay carigaasi. Waxaa mar kale diiradda saaray raadeerka Buule Berdi oo isna mid casri ahaa. Waxaa kale oo arkay raadeerka garoonka ciidamada ee Beledoogle. Intaasna duuliyihii ma jawaabin, oo qorshihiisii ahaa inta ay iswarsanayaan ayaan dusaynaa ayuu ku socday. Marka inta la isu celcelinayay, diyaaraddii soo xadgudubtay Berbera, Buule Berdi, Beledoogle iyo waxyadii shaqada ku lahaa hawada iyo difaaca waxa ay ahaayeen daqiiqado tirsan. Markii la arkay duuliyaha diyaaraddu inuu kas iyo maag u dhageysanayo, waxna maagan yahay, ayaa amar la bixiyay. Isla markiiba 2 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah nooca miiga loo yaqaano ayaa garoonka militariga ee Beledoogle ka kacay. Labadii diyaaradood daqiiqado yar gudahood waxa ay hareeraha ka mareen diyaaradda ajnabiga ahayd. Waxaa diyaaradahani wada waa saraakiil Soomaali ah. Mid waa kabtan 3 xidigood garbaha ku wata, midna waa 2 xidigood. Inta ay la simeen diyaaradii kale ayay amar siiyeen oo ay ku yiraahdeen na soo raac, halka aan kuu tilmaamno ku deg, haddii kale waa lagu tooganayaa adiga iyo waxa isdidba. Caaqib xumadeedna adiga ayaa ka mas'uul ah.
waa la soo jiireeyey. Waxaa lagu soo hagay inuu ku dego garoonka diyaaradaha Muqdisho. Diyaaradda MiG koowaad wadda ayaa ka horeeya, waxaana uu sheegay inuu dhulka taabanayo, kadibna ka sii kacayo oo isaguna meesha ku dego, waayo meesha ciidamo kale ayaa ugu diyaarsanaa oo sugayay. MiG labaad wuu ka dambeeyaa. Duuliyihii Soomaaliga ahaa intuu baalasha raariciyay oo dhulka si fudud u taabtay ayuu ka sii booday. Ilbiriqsiyo isku dhow ayaa labadii MiG garoonka dhanka Afisyoone korkiisa u dhaafeen, iyagoo labada dhinac badda iyo beriga u kala baxay, welina isha ku haya diyaaraddii la soo qabtay inay si nabad ah u degtay. Hase yeeshee aadana waa yaabe, waxaad moodaa duuliyihii diyaaradda yari inaan weli isdhiibin, waxaana ka guuxay zamaankiisa sidii adigoo nin reer Yurub ah dowlad yar oo Afrikaan ah ku celin kartaa. Isaguna inta uu carooday oo cagta dhigay ayuu isla markiiba kor u kacay oo dhanka badda u xawaariyay, isagoo malaha is leh xagga badda ayaad xuduudooda dhaqsi uga bixi kartaa. Laakiinse waa hubanti inuu xisaab qaldan isku dhufsaday. Soomaaliduna warkooda uu ku yaraa. Markiiba labadii MiG ayaa ku soo jiireeyay, iyada oo ay u caddaatay diyaaraddani iyo duuliyaheeduba inay casharkii hore ka fiican oo ka culus ay u baahan yihiin. Duuliyayaasha Soomaalidu xilligaasi way tiro yaraayeen, laakiin waxa ay ahaayeen kuwo xarfaan ah oo shaqadooda aad ugu adag. Duuliyihii MiG koowaad waday ayaa diyaaraddii la soo simay dhinaceeda. Intuu ku soo dhowaaday, isaga oo aan la hadlin ayuu hal gantaal ku soo daayay, wuxuuna ka mariyay qarka hore korkiisa meel wax yar u jirta. Juuqna uma dhihin oo lama hadlin. Ma hadal baa jira. Diyaaraddii inta ay ruxantay ay saacadeeduna isku dhex yaaceen, gaaladii saareedna matag iyo qaylo ayay ku waasheen. Markaasuu duuliyahoodii miyirsaday. Degdeg ayaan u degaynaa ayuu ku hadaaqay. Markiiba garoonka ayuu halhaleel ku soo noqday oo si dabacsan ugu soo degay. Halkaas ayaa ciidamadii ku sugayay diyaaraddii ku soo dejiyeen, dhammaantoodna xabsiga loo taxaabay. Wakiil Soomaali ah oo dowladahaasi howlahooda u qaban jiray maadaama aysan safaarad lahayn ayaa ugu yimid meeshii lagu soo xiray. Ciidamadii nabadgelyada ayaa wareysi la sameeyey. Waxaa la soo saaray codsigii ay soo gudbiyeen iyo jawaabihii laga bixiyey. Digniintii ay siiyeen raadaarada Berbera iyo Buulo Berdi, dhammaan markhaatiyadii iyo howlwadeennadii. Markaa kadibna maxkamad degdeg ayaa loo gudbiyey. Maba aysan inkirin. Wuxuu duuliyahoodii si cad u qirtay inuu u bareeray inuu soo galo hawada, mana aanan islahayn ayuu yidhi. Dowladdan yarta ah ee Afrikaanka ah ayaa qalab casri ah haysata ama idin soo qaban karta, laakiin aad iyo aad ayaynu Soomaaliya ugu soo qaldannay, sidaasna marnaba ma aanan moodayn, ayuu ku jawaabay. Maxkamaddu waxa ay ku xukuntay xarig iyo ganaax duuliyaha iyo shirkadiisaba. Dhammaan kharashaadkii diyaaradaha MiG ahaa ay ku kaceen ama ay ku howlgaleen, qiimaha gantaalada lagu riday, dhammaan kharashaadkii kale, iyo inay meeshii ka yimaadeen ay ku noqdaan ayaa lagu xukumay. Xabsiga inay gadan karaan ayaa markii dambe loogu bedelay lacag aad u fara badan waa laga qaaday. Markaad aragtid sida maanta layguna jeesjeeso, sidoo kale tusaalayaasha laynagu soo qaato marka la rabo in ummad lagu cabsi geliyo dhibaatada ay leedahay burburka iyo nidaam la'aanta, iyo markaad dib u milicsatid dhacdooyinka noocan oo kale ah ee ku tusaya awoodda iyo haybadda ay leedahay dowladnimadu, waxaad garowsanaysaa daawade inaynu laf cantuubin ku hayno. Arrinta la yaabka lahi ayaa ah inay weli jiraan dad maankooda ka guuxayo in qabiil iyo qabyaalad ay tahay sharaf iyo qarannimo. Waa hubaal inuunan Ilaahay bedelin qoom ilaa ay iyagu naftoodu bedelaan.